السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دهو جانلك فضلا هدي أدكو عصب تاهي جانلك حتى كسو بير سبسكرايب waxaad ka heli doontaa fiidiyoyo tayo leh oo ku saabsan mobile technology oo ku qancin doona insha Allah. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa cashar aad iyo aad u muhiim ah oo inta badan dadku ay raadiyaan mobilada adduunka ugu badanna boqolkiiba 25 waa laga helaa waa busy-ga ama qaleylka saa u taqaano markuu telefoonku ka yeera is istaago ama uu busy galo ama uu soo daaho tusaalahan markaad program furato ee aad saacad sugisid. haddaba maanta waxaan ku hayaa sidii aad uga hortagi lahayd ee telefoonka uga dhigi lahayd mid fast ah oo waxaa taabataa markaaba degdeg ah. haddaba fiidiyogani waa kaaga fadlan ka faa'iidayso. waxaad tegaysaa marka koowaad callkaaga. haddaba secret codeskan ama koodharkan aan hadda kuu sheegi doono waxay ku shaqaynayaan taleefanada Samsung oo kaliya. waxaa kaloo casharo dambe ku soo bixin doonaa taleefanada kale koodhar ay ku shaqeeyaan ama sistema caadi oo kale, balse hadda koodhkan wuxuu ka hadlayaa mobile Samsung oo mobilada Samsung oo kaliya. waxaad taabanaysaa xidig salaan 9900 salaan ee raacinaysaa kadib isaga ayaa meesha ku keenaya. waxyaabahan aadka u badan waa waxyaabo iyaguna aad u muhiim ah oo casharo ayaan nambaro u samayn doonaa kadibna waan ku soo bixin doonaa. laakiin haddaba maanta casharkan kaga hadli doono waa qaybta debug level enable high. waka aniga high buu yahay waad aragtaa. imika haddii aan anigu taabto high telefoonka ugu isticmaalaya wuu soo shidaya oo systemka ay fast dib uga dhigayso bilaa low haddaan taabtana sidoo kale middle haddaan taabtana waa sidoo kale. haddaba maanta casharkeenu intaas ayuu noogu eegaya. waxaan kaloon kaga hadli doonaa cashar soo socda waxyaabahan halkan ku jira, laakiin maanta muhiimadda casharkeena ayaa ahayd sida telefoonka busy-ga looga saaro. midda kale waxaan idiin sheegayaa maalmahan dambe fiidiyoyada aan soo gelino halkii isbuuc ayaan hal fiidiyo soo gelinaa, balse hadda laga bilaabo halkii isbuuc 3 fiidiyo ayaan soo gelin doonaa insha Allah taala. fadlan ku xidhnow channelka waa inooyo fiidiyowga